qofka caasiga ah ee dunuubta ku jira oo dunuubta galo waxa lagu sallidaa oo ka hor yimaada adoomada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaanu tilmaami doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo oon ognahay dadka bini aadanka ah qof kasta waxa ka dhaco khalad gaf macaasi baa la gelaya dunuub baa la gelaya marka arrinta ayada ah iyo macaasida iyo khaladaadka la gelayo waxyaabaha ka dhasho oo ka ratimo ayaanu tilmaami doonaa waxaan tilmaami doonaa 9 cuquubood oo ka dhalato khaladaadka iyo gafafka la galo. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dhunubta iyo khaladaadka la galo waxa ka dhasho 9 cuquubo ayaa ka dhalato. kow waxa kamid ah xirmaanul cilm qofka cilmiga iyo aqoonta in laga xiro bisabab dhunubta uu galay iyo macaasida uu galay ka dhashay. labo waxa kamid ah dhunubta iyo macaasida aasaarta ka dhalato waxa kamid ah xirmaanul rizq qofka rizqigi in laga xiro laga hor istaago laga manciyo. nabiga waxa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yiri innal abda la yuhramu ar-rizqa bidhanbi yusibuhu adoonka waxa laga xanibaa oo laga xirmaaniya oo laga qaadiyaa rizqigiisi dhunub uu galay darteed dhunub uu asiibay oo uu ku dhacay darteed. qodobka saddexaad oo macsiyada iyo dhunubta la galo ka dhasho waxa kamid ah waxa daciifa qofka qalbigiisa ayaa daciifo weynidii Allah subhanahu wa ta'ala qalbigiisa uu ku weynaan lahaa baa daciifayso hoos u dhacayso. qodobka afraad oo macaasida iyo dhunubta ka dhasho waxa kamid ah fuqdaan laddat al-ibada qofka inuu waayo dhadhanka iyo macaansiga cibaadada. naam qodobka shanaad oo macaasida iyo dhunubta la sameeyo ka dhasho waxa kamid ah tasliitul cibaadi cala al-caasi qofka caasiga ah ee dhunubta ku jira oo dhunubta galo waxa lagu sallidaa oo ka hor yimaada adoomada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka hor yimaada. haday tahay awlaadiisa haday tahay xaaskiisa haday tahay asxaabtiisa haday tahay asxaabta guud ibn aadan oo dhan ayaa ka hor imaanaya. arrintaasna waxay ka dhalatay oo ku timid dhunubtii iyo khaladaadkii iyo macaasidii la galayay bay ku imaanaysaa. طيب بعض السلف waxa laga sheegaa inay dhihi jireen inni la a'si Allah ilaahi baan caasinaya fa a'rifu dhalik khuluq imra'ati wa khuluq dabati macaasidi iyo khaladki aan galay waan garan inaan khalad galay waxaan ku garan on ka garanaya xaaskayga dabeecad aan ku aqoon jirin iyo dhaqan aan ku aqoon jirin iyo qaab aan ku aqoon jirin baan kala kulmaya markaas waxaan garanayaa inaan maanta khalad galay. daabadayda iyo xayawaanka la fuulo ama faras ha noqdo ama daabad kale ha noqoto ayaan ka garan bay yiraahdeen bacdu salaf dhunubti iyo macaasidii aan galay. طيب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بيقول الله سبحانه وتعالى.
وحيدين أصيبه أو مصيبة ووحي قعمهنا يكسبدين وشقيستين بمعنى الذنوب إيو وحيابه خلطاته قشين مبي كوي يكون عين ساسو يتهينا ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى وحبضان أو خلطاته لقلا ينوب عفيابا طيب قضب كاللحات معصية الذنوب تلقلا وحاكدش تورث الذل ولا بد وحيد حشيسا قفك ذلي أيد حشيسا حي لي فإن العزة كل العز في طاعة الله سبحانه وتعالى عزك هي الشرف لما أنت وحي كجرتا طاعة الله سبحانه وتعالى لا أطيعه له قانسمه أمر كيسانا لقاته سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقطة صنعه هكاسي كجرتا عزي يا شرف هكا مركي لقال لي حدا يقفك خلطات يا معاسي وكدعو ذلي با كدعها يو باللابنا يو كدحليه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فإن العزة نعم وحكم ذا قضب كتضبات وكدشه معاصي إيا ذنوبته وحكم ذا إن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهم والحزن والضيق ذنوبته وحي كمتها أسبابته أبوحو قبضان أسوجيده هميغا إيا مركتا والولكا إيا قفكي إني أرميهيسا أي ضيق إيا عريري وقالوا أسبابها كينو وحكمي ذا معاصيدا إيا الذنوب تلقلي قضبك السديدات قفك عاسقة وحود دريمه عبسي خلخل وحشة أيو دريمة يا قلبك حقيسة أيو قده أيو كدريمة الله سبحانه وتعالى سوملهن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قفك مركي ذنوبتا يا خلطاتك يا معاصدا وكدعو وحي سبب أغنى قنيسا إنو دريمو كالسوني دري iyo khalkhal iyo cabsi qalbigiisa ma fadhiyo naam qodobka sagaalaad macaasida iyo dunuubta waxa ka dhasho oo ka beermo inay baabi'iso barakatul umri wa barakatul rizqi wa barakatul waqti waxay tirtirtaayo baabi'isaa barakada qofka ka qaadayo ka tirtirtaa tobankaas qodob ayaan ku joojinaynaa waxyaabaha ka dhasho dunuubta iyo macaasida sidaa darteed naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmaya inaan ka dheeraanno waxyaabahaasna dhaxashiinahayo inaan ka fogaanno ku dadaalno daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk